السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل والكين مهدي ميعاد مانتا موبايل ابليكيشن اما تلفون كانت قعنت كويس وحن نقضي ان wax kasta lagu isticmaali karayo website-ada dad kale ama shirkadaha maxay website la soo ziyaarto waxay ku leeyihiin boqolkiiba 86 dadka imanayay waxay ka soo galaan waa mobile maxay mobile waxay ka soo galaan يعني كمان دقنو تابلت bay ka soo galaan iyo website way ka soo galaan laakiin inta ugu badan waxay ka soo galaan waa mobile adiga nimika idageysan waxa dhici karta ihtimaal kabiir inaad adiguna aad iga daawanaysid mobile application hadaba mobile maxay mobile ama youtube kan aad iga daawanaysid waxa dhici karta inaad telefonkaaga mobile-ka aad iga daawanaysid marka mobile-ku application-ka qofku maanta haduu yahay qof developer maanta haduu yahay application-ka development-iga mobile-ka lagu develop gareeyo aad iyo aad baa loogu baahan yahay hadaba maanta waxaan isku dayay inaan ku tuso hadii aad rabtid inaad noqotid mobile app developer hadaad noqotid waxyaabooyinkii aad u baahan tahay ayaan video kooban aan kugu tusi mobile application-ka waxaan jeedaa mobile-ka maanta isticmaalkiisu aad iyo aad buu fara badan yahay laakiin lagama maarmayo application-ka webka qofka haduu rabo inuu barto sida loo barta ama waxyaabooyinka loo baahan yahay aad iyo aad bay u fara badan tahay laakiin mobile-ka hadii aad eegtid uu ka yar yahay waxa loo baahan yahay webka waayo webku waa wixii wala buuxa hadaba maanta qof walaalkaygan i daawanaya ama walaashaydan i daawanaysaa waxaad doontid baad digatid waxaad isku qaaday inaad noqotid mobile app developer application-kan develop ama game ha noqoto ama wax shirkad u baahan tahay noqoto ama social media ayaad rabtaa inaad sameysid waxbaad rabtaa inaad sameysid marka maxaad u baahan tahay hadaba inaad baratid haddii maanta google-ka aad ku qortid imise application ayaa google play ku jira ama app store ku jira app store-ka waxaa ku jira 1.96 million application baa ku jirta waa 2 million application wax ku dhow google play-gana waa 3.48 million waxaa ku jira waa almost waa 3 million oo application ayaa ku jira waxaasoo application maxay qabanayaan maanta waxa la siri qofku haduu meeshu doono haduu tago waxa kaliya atuu ka maarmi waa maxay uu sito waa telefonka weeyaan yani maanta min hurdadaada ilaa iyo hurdada kale intay soo gaarayso waxa ugu badan ee gacanta ku haysaay inta u badan waa telefon miftaax iyo boorsada waa kuwa ku soo xigade ee maanta aan qofku ka maarmayn haduu dabra inuu dibadda baxo haduu gaari wato waa miftaax haduuna gaari wadana waa mobile-ka weeyaan lacagta yareed gacanta ku haysid oo billahi tawfiiq inta ugu badan laakiin waa mobile hadaba mobile-ka inaan ku biirnaminayn inaga community-geena ama dadkeena afka Soomaaliya ku hadla inaan ka qayb galnaminayn application-ada inta milyan ee fara badan la sameeyay inaan ka qayb galno waa daruuri shaqooyinka mobile application-kuna aad iyo aad u wanaagsan tahay shaqooyin badan waad ka heli mishaarkoodu saas leeg ma baano waa mishaar aad iyo aad wanaagsan waana remote friendly waxa ka intahay waa shaqooyin adiga oo gurigaaga iska jooga Soomaaliya iyo meesha aad tiba joogo waa shaqooyinka maanta aad ka shaqeyn karaysid adduunka oo dhan hadaba aanu soo galno waxaan rabaa mobile developer kina noqdo okay mobile developer ka dad noqotid laba waa ina mid dooratid mid waxa weeyaan waa 1.96 million weeyaan oo waa iOS developer ki waa dadkan 2 million application ku dhaweeyaan waa inta iPhone-ka iyo iPad-ka iyo Mac-ga application lagu isticmaalo laakiin taa dhibteedu waxay ku noqon doontaa waa inaad lahaatid Mac PC ma ahayne waa ina laptop-ka waa inuu Mac noqon way hadhow toole waxyaabooyinka lagu isticmaalayo waxaad aad iyo aad ugu baahan tahay waxa weeyaan waa Mac weeyaan marka
waxaan ku dhibayd waa Mac iyo Android inaad kala qaatid haddaba Mac application hadhow laakiin ila soco waxaa jira mid labadaba isku qaadanaya jiray ila soco qofku hadduu rabo inuu Mac developer noqdo waa luqadooyinka la baranayo language-ka wax weeyaan waa Swift language iyo Objective-C haddii maanta YouTube-ka aad ku qortid Swift tutorial aad ku qortid waxaad arki doontaa intaasoo saacadood oo tutorial mid waad qabsan kartaa dabadan baad qabsantay waad baran ilaa inta aad ka noqonaysid maxay ahayd Swift developer taay waa qofka raba inuu noqdo iPhone developer iPhone han dhahnay iOS oo isku soo lagay waa wala systemka iOS la dhaweeyay ta kale ee ugu badanina waxa weeyaan waa Android developer weyn Android developer noo ku sheegay waa 3.48 million application waxa Google Play ku jirta haddii aad rabtina taa noqotina luqado fara badan oo lagu develop gareeyay way jiraan laakiin labada ugu caansan waa maxay waa Java luqada Java la yiraahdo iyo luqada Kotlin la yiraahdo haddii marka YouTube-ka aad ku qortid Kotlin tutorialna isagana saas leeg waxaad arki doontaa intaasoo saacadood oo waxaan ku leeyahay aad wax ka baranaysid marka dadka waxa la isku yiraahdaa imanka labada qaban ku shaxay native baa la isku yiraahdaa native waxa weeyaan waa luqadii asalka ahayd ee qofku inuu rabo markuu developer noqonayo haddaba dhibta native-ku waxa weeyaan adiga oo wiil ama gabar Soomaaliyeed ayaa fikrad baa ku soo dhacday fikradda waxaad rabtaa inaad ka dhigtid application inaad samayso haddaba imanka haddii native-ka aad raacdid waxaad ku qasban tahay inaad laba luqadood baratid oo marna Swift-ga aad baratid si aad iPhone application-ka ugu samaysid iyo halkan maxaade Kotlin oo ka dhigan ama Java oo ka dhigan Android marka waa inaad laba luqadood baratid ama ima kama soo qaad marka shirkad baa tahay waxaad rabtaa application aad samaysatid haddii aad native-ka waxa la yiraahdo aad isticmaashid waxaad u baahan tahay laba language dad baa fikro waxay yiraahdeen miyay dhici kartaa luqad kaliya in la barto language kaliya in la barto hadda kelmadda language markaan ku leeyahay maaha language-ki lagu hadlayo af Ingiriisiga iyo af Carabiga af Soomaaliga maaha language waxa la yiraahdaa wax kasta oo maanta application ama programming waxay u baahan yihiin luqad bay u baahan yihiin marka waa luqadii weyn marka luqadda haddii aad rabtid inaad native aad isticmaashid kuwan asalka ah haddii aad doonaysid inaad isticmaashid waa inaad labada luqad baratid dad baa fikro waxay yiraahdeen intuu qofku laba luqadood baran lahaa ama shirkadu laba application ay develop gareyn lahayd maxay fiicnaan lahayd in la isticmaalo write once run everywhere oo ka dhigan inaad mar kaliya aad code samaysid code kana labadii meeloodba aad ku isticmaashid ama Android lagu isticmaalo ama lagu isticmaalo iPhone way fiicnaan lahayd samaha shirkadaha waxa weeyaan luqadaha waxa weeyaan mid Facebook baa samaysay oo magaceedu waxa la yiraahdaa React Native React oo dhan Facebook baa iskale React waa language JavaScript ku saabsan marka waxay samaysay mid la yiraahdo React Native iminka YouTube-ka aad ku qortid React Native tutorial aad ku qortid waxaad arki doontaa intaas saacadood oo waxbarasho oo maxay waxbarasho React Native waxay ku fiican tahay waxa weeyaan waa qof JavaScript yaqaan dadka website developer-ku aad iyo aad bay isagu dhib yar tahay JavaScript-gaagii bay u dhowdahay tani kadib React Native markaad samaysid waxaad samaysay application lagu isticmaali karayo iPhone iyo Android wa ايش على okay haddana qaar kala jira oo Flutter kana badana xagga React Native-ka ay Facebook ka dambayso oo ay samaysay Flutter kana Google baa ka dambaysa laakiin Flutter-ku isticmaalka way ka baahan tahay laakiin dibteedu waxa weeyaan language-ka la baranayo Dart la yiraahdo ayayna la baranayo oo luqad kale oo gooniya laakiin haddii aad baratid shaqadeedu intaas leeg aad iyo aad u baahan tahay marka maanta dhalinyarta Soomaaliyeed ee daawanaysa waxaan kula talin lahaa waxa weeyaan inaanad marka u horeysa aanad ku degdegin Android kaliya developer inaad noqotid ama iOS developer kaliya aad noqotid
waayo iOS developer haddaad noqotid shaqooyinkii fursooyinkii shaqaad iska yaraynaysaa. Android haddaad noqotidna maxaa fursadihii shaqo ee iOS-ka ayaa kaa yaraanaya. laakiin marka aad cross platform language-ana la yidhahdo aad isticmaashid waxay ka dhigan tahay kan baad samayn markaad kan samaysid ayaa laba isticmaali. marka bal waxaad isku daydaa inta aanad kuba shaqo tagin ama shaqo aanad raadin inaad waqtiyaashaada fasaxa YouTube-ka ku qor React Native Development ama React Native tutorial ama Flutter tutorial kadibna baro. markaad baratidna insha Allah waxaan ku rajaynayaa anigii adiguba inaan shaqooyin wanaagsan inaan heli doono. weliba React Native iyo Flutter inta aanad doorana waxaa dhici karta dhalinyaro Soomaaliyeed maanta adduunka dhan wala joogaa jira. waxaad eegtaa magaalada aad joogto ama meesha aad joogto maxaa laga isticmaalaa. haddii ay jirto wax gooni oo laga isticmaalo de waxa fiicnaan lahayd taa inaad baratid ood ku shaqo tagtid. haddii laakiin aad rabtid inaad meeshaad ka shaqaysidna waxa wanaagsan lahayd inaad search yar aad samaysid Flutter ama React Native mid qabo midaana bisinka u qabo. insha Allah mustaqbalkan yaa rabbi ilaahuna gaarsiiye mustaqbalkan waxaa dhici karta in aniga kula hadlay walaalkeen kula hadlay in iyadoo Soomaaliya aan samayn doono tutorial course yaal ku saabsan ama React Native ama tutorial ama Flutter ku saabsan. bal mustaqbalka insha Allah ilaahay wax kasta noo dhib yareeyay waan samayn doonaa insha Allah. aad iyo aad baad mahadsantihiin intaas ku soo gabagabeynaya. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.